Muuqaalka waxaynu kaga hadlaynaa the importance of physics in field-based subjects. Muhiimadda uu fiisigisku u leeyahay markaasi maadooyinka ku salaysan waaxda field-based subjects refer to academic disciplines on areas of study that involves conducting research, data collection, and investigation directly in the natural environment or specific field setting. Maadooyinka ku salaysan markaasi waaxda waxaa loo tixraacaa waaxyaha taxliineed ama meelaha la barto kuwaas oo la xidhiidha samaynta markaasi ama qabashada cilmi baadhis, ururinta xogta iyo waxbaadhista tooska ah ee deegaanka dabiiciga ah ama waax gundhig ah oo gaar ah. The government of Ethiopia has taken steps to prepare for millions of students graduating grade 12 in the coming decades. Dowladda Itoobiya ayaa waxa ay markaasi qaaday tallaabooyin ay ku diyaarinayso malaayiin arday ah kuwaas oo ka bixi doona fasalka 12aadka tobanaanka sano ee soo socda. The primary step that government is taking is preparing the present curriculum and implementing it. Tallaabada aasaasiga ah ee dowladdu qaadayso ayaa waxay tahay markaasi diyaarinta manhajka waqti xaadirkan iyo sidoo kale soo saaristiisa. There are 5 basic field subjects that prepare the students for the job markets. These are waxaa jira markaasi 5 maadooyin oo ku salaysan waax kuwaas oo markaasi u diyaarinaya ardayda suuqyada shaqada kuwaas oo kala ah manufacturing field, construction field, information technology and computer science field, agriculture field, health science field, waaxda wax soo saarka, waaxda dhismaha, waaxda tiknoolajiyadda iyo warbixinta, waaxda sayniska kombiyuutarka ama cilmiga kombiyuutarka, waaxda beeraha iyo sidoo kale waaxda caafimaadka. Haddaba field-based subjectska waxaa loo yaqaano sidee ayuu fiisigisku muhiim ugu yahay. Waaxda koowaad waxay tahay manufacturing field, waaxda markaasi wax soo saarka. Waaxdana fiisigisku waxa uu muhiim ugu yahay sababahan soo socda. 1. Metal manufacturing, soo saarka markaasi biraha. Automotive technology, tiknoolajiyadda iskeed isku wada. Textile and leather garment, samaynta markaasi dharka ama ha ahaadaan kuwa laga sameeyo bida ama ha ahaadaan kuwa laga sameeyo markaasi haragga. Working, shaqada markaasi alwaaxa ama looxaanta. Construction field, waaxda dhismaha. Fiisigisku waxa uu caawiyaa siyaabahan soo socda. 1. Waxa uu ka caawiyaa electricity korontada. Plumbing ayuu ka caawiyaa biyo gelinta. Carpentry, qaybta nijaarnimada. Finishing work, sidoo kale shaqooyinka kale ee qurxinta. Information technology and computer science field, marka aan fiirino fiisigisku waxa uu muhiim ugu yahay computer maintenance, dayactirka kombiyuutarka, website design, shaqadeynta website-ka ama bogagga internet-ka, computer graphic design. Agriculture field haddaan soo qaadano waaxda markaasi beeraha. Fiisigisku waxa uu muhiim ugu yahay crop production and management, soo saaridda markaasi midhaha iyo maareynteeda. Animal production and management, wax soo saarka xayawaanka iyo sidoo kale maarayntooda. Natural resource management, iyo sidoo kale maaraynta kheyraadka dabiiciga. Health science field, waaxda caafimaadka haddii aan fiirino waxa uu fiisigisku markaasi muhiim ugu yahay personal community and health patient care. Personal health, caafimaadka shakhsiga. Community health, caafimaadka bulshada. Patient care, daryeelka bukaanka. Nutrition, nafaqada. Dietetics, cuntooyinka isku dheeliga tiran. Child care, daryeelka carruurta ama ilmaha. Well-being, badqabkooga. The mission of physics is to advance science, engineering, innovation through the world for benefit to society. Hadafka fiisigisku markaa waxa uu yahay inuu markaas horumariyo sayniska, engineeringka, dib wax u hindisida adduunka midaas oo faa'iido u ah bulshada. 1.6 oo cashirka 6 ahna cashirka ugu dambeeya cutubka current status of physics, heerka uu maanta ama waqti xaadirkan fiisigisku taagan yahay. The major recent discoveries of physics. Physics is the study of physical world from the smallest particle to gigantic structures known human galaxies, clusters of galaxies and black holes. Major recent discoveries of physics. Daafuradii ugu dambeeyay markaasi ee ugu badnaa fiisigiska. Fiisigisku waxa uu yahay barashada markaasi adduunkan duleed marka laga yimaado walaxda ugu yar ama smallest particle oo atom ilaa laga gaaro gigantic structures qaab dhismeedyada ugu waaweyn known to human kuwaas ay bini'aadamku u yaqaanaan
galaxyada. Clusters of galaxies sidoo kale ururada markaasi galaxieska iyo sidoo kale black holeska godadka loo yaqaano godadka markaasi mugdiga. Waa maxay haddaba markaasi galaxies waxay yihiin markaas ururo markaasi xidiga ah. Galaxies waa kuwan muuqaalka markaasi galaxiesku kan waxaa loo yaqaanaa markaasi Milky Way galaxy. Milky Way galaxy waxau yahay markaasi ururada xidigaha ah ee Milky Way. Milky Way macnaheedu waxay tahay leh qaab dhismeedka ama nooc caanaha. Milky Way galaxy waxau yahay markaas mid ka mid ah ururada markaasi xidigaha. Galaxy haddaan si kale u eegno waa qaab dhismeedka ugu weyn markaasi adduunka. Milky Way galaxy haddii aan soo qaadano oo ka mid a markaasi nooc ka mid a galaxyadaas waxaa ku jira dhammaan bahda loo yaqaano solar system ama bahda markaasi qoraxda oo ay ka mid yihiin qoraxda iyo sidoo kale sagaalka meere iyo qoraxda dhammaantood waxay ku jiraan markaasi single galaxy isku mid ah midkaasoo loo yaqaano Milky Way galaxy oo ah markaasi midka sawirkani hadda ka muuqda. Kan waxaa loo yaqaanaa markaasi Milky Way galaxy. Milky Way galaxieska maxaa sameeya haddaba? Galaxieska waxaa sameeya isku tega markaasi xidigaha. Billions of stars balaayiin markaasi xidiga ah ayaa waxay noqonayaan kuwo isku tega kadibna waxay sameynayaan markaasi muuqaalkan. Balaayiintan galaxiga ah waxay isku hayaan balaayiintan markaasi starska ah waxay isku hayaan markaasi xoogga loo yaqaano gravity-ga ama xoogga cufis jiidadka. Midkaasoo u saamaxaya inay sidan ay ahaadaan kuwo iskugu dhow. Kani waxau yahay black hole ama godka mugdiga ah. Godkani waxa uu ku yaalaa the center of Milky Way. Xudunta markaasi Milky Way-gan hore usoo aragnay. Milky Way galaxy kian oran jirnay hore usoo aragnay. Bartankiisa ayuu ku yaalaa markaasi black hole oo ah markaasi godka mugdiga ah. Black hole waxau yahay markaasi god mugdi ah oo ku yaala bartamaha markaasi ama gudaha hoose ee markaasi Milky Way galaxy. Black hole waxau yahay markaasi god mucjiso ah midkaas oo xataa ilaysku uusan ka baxsan karin haddii lagu qabto. Markale black hole-ku waxau yahay waxau yahay halka ay markaas xidiguhu marka uu iftiinku ka dhamaado ama ay dhintaan ay ku daataan. Some of the major recent discoveries of physics are discovery of exoplanets, black holes, quantum entanglement, quantum cryptography, high energy physics or particle accelerators, gravitational waves, large scale structures, global warming, James Webb Telescope. Qaar ka mid markaa daafuradii ugu dambeeyay ee physicsku markaa waxay yihiin kuwan soo socda. Daafurkii markaasi exoplanetska meerayaasha markaasi dheeraadka ah. Black holes godadka loo yaqaano markaasi godadka mugdiga kuwaasoo ku yaala galaxieska ama ururada markaasi xidigaha. Quantum entanglement walxaha markaasi cadadkoodu yar yahay isku lifaaqan. Quantum cryptography muuqaalada daahsoon markaasi ee walxaha cadadkoodu yar yahay. High energy physicska markaasi tamarta heerka sare leh ama particle accelerators karaariyaasha markaasi walxaha. Gravitational waves hirarka markaasi cufis jiidadka iyo large scale structures qaab dhismeedyada markaasi cabirkoodu uu weyn yahay. Global warming kululaanshaha caalamka iyo James Webb Telescope fogaanbeega markaasi James Webb waana ninkii soo saaray markaasi telescope-ka noocan oo kale ah loo yaqaano markaasi fogaan aragga hawada ee markaasi James Webb. Exoplanets or extrasolar planets are planets outside our solar system. Exoplanetska meerayaasha loo yaqaano or extrasolar planets waa meerayaasha markaasi baxsan ama meerayaasha ka baxsan markaasi bahda qoraxdu. Waxay yihiin markaasi meerayaasha ku yaala dhinaca dibadda ee markaasi solar system bahda markaasi qoraxda. Sida caadiga bahda qoraxda waxaa ku yaala 9 meere oo uu dhulku ka mid yahay. Saas daraadeed meerayaashani waxay yihiin kuwa ka baxsan meerayaashaas saas ee loogu bixiyay magaca exoplanets. There are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems. There are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems in 1 October
2022. waxaa jira markaasi 5,197 exoplanets oo la xaqiijiyay. 3,830 waxay ku yaalaan markaasi habdhisyada meerayaasha, waxaana la xaqiijiyay arrintani 1dii markaasi bishii Oktoobar ama bishii 10aad 2022. First exoplanet was discovered by Meyer Dieter Kielers of University of Geneva on 6th October 1995. Exoplanetka ugu horeeya waxaa daahfuray markaasi Meyer iyo sidoo kale Didier Queloz oo ka socday markaasi jaamacadda Geneva University 6dii markaasi Oktoobar 1995. Michael Meyer and Didier Queloz were won Nobel Prize in Physics in 2019. Michael Meyer iyo sidoo kale Didier Queloz ayaa waxay ku guuleystay abaalmarinta qaaliga ah ee fiisigiska sanadkii 2019. Black hole is a region of space that its gravity is so strong and nothing can escape even the light. Black hole ama godka mugdiga ah waxa ay tahay markaasi meel ku taala hawada, taasi oo cufus jidadkeegu uu aad u xoogan yahay, xataa ilayskuna markaasi kama baxsan karo. Roger Penrose, Reinhard, and Andrea Michael have won Nobel Prize in 2020 for discovery of black hole formation at the center of Milky Way galaxy. Fiisiksyahanada markaasi Roger Penrose, Reinhard, and Andrea Michael ayaa waxay ku guuleysteen markaasi abaalmarinta qaaliga ah 2020 daafurkii ay ku sameeyeen markaasi godkan loo yaqaano black hole ama godka mugdiga ah oo ka samaysmaya markaasi xudunta ama bartamaha markaasi Milky Way galaxy, ururada xidigaha ee markaasi Milky Way. Cryptograph muuqaalada markaasi ama sawirada dahsoon leh. Cryptograph is sending information and messages in a secret. Muuqaalada dahsoon ama maqaalada dahsoon waxay yihiin markaasi isku diridda warbixinada iyo fariimaha markaasi habsir ah. Your bank account, your password are in risk if they are without secret encryption. Akoonkaaga markaasi bangiga, passwordkaaga waxay yihiin markaasi kuwa khatar ku jira haddii aan lagu sameynin markaasi muuqaal dahsoon. Quantum cryptography is application of quantum physics that enhance the security information on exchange at higher level. Muuqaalada dahsoon ee markaasi cadadka walxuhu waa isticmaalka markaasi fisikska cadadka walxaha ama qurubyada ugu yar ee walxuhu leeyihiin that enhance the security information, kaasoo markaasi kor u qaada warbixinta ammaanka ama isweydaarashada warbixinta ammaanka ee heerka sare leh. In July 4, 2012, Gregorian calendar, CERN discovered particle called Higgs boson. Bishii July markaasi ama 7aad 2012 CERN ururka loo yaqaano ama ururka cilmi-baadhista nuclear-ka European Nuclear Research Organization ayaa waxay daahfureen markaasi walax loo yaqaano Higgs boson ama walaxdii markaasi Higgs. Higgs boson is a subatomic particle like protons, photons, and electrons. Higgs boson ama walaxdii Higgs markaa waxa uu yahay markaasi Peter Higgs oo ninkii daahfuray markaasi walaxdan. Higgs boson is a subatomic particle like photons, protons, and electrons. oo walax isna markaasi qurubyada ilayska ah ama borotonada ah ama sida electronada ah. Borotonada iyo electronaduna waxay markaasi subatomic particles walxaha atomosaadka markaa weeyaan ama qaybaha atomka uu qaybsamo. The experiment took 60 years to prove the existence of this particle. Tijaabadani waxay qaadatay markaasi 60 sano si loo caddeeyo jiritaanka markaasi walaxdan. More years have taken to prove Albert Einstein's theory of gravity that states that gravity is a wave that travels 3 times 10 to the power of 8 meters per second. The hypothesis was formulated in 1916. It was proved that to be right in 2016 by LIGO. Sanado badan ay qaadatay markaasi in la caddeeyo aragtidii Albert Einstein ee cufus jiidadka, taasi oo markaasi odhanaysay cufus jiidadku waa heer kaasoo ku socdaala 3 times 10 to the power of 8 meters per second 300
oo markaasi milyan oo kilomitir oo mitir ku socda beer second halkii sekinba. Afeeftani markaasi waxaa la asteeyay 1916 waxaana markaasi caddeeyay inay sax tahay 2016. Indha-indhayaasha loo yaqaano markaasi laser interferometer gravity observers. Indha-indhayaasha markaasi cufisjiidadka lagu cabiraya markaas isdhexgalbeega laserka. It took thousands of scientists to collaborate work and use laser interferometer. Waxay qaadatay markaasi in kumanaan saynis yahaan ay si wada jira u wada shaqeeyaan isticmaalaana markaasi laser interferometer isdhexgalbeega markaasi laserka. Global warming is increase of Earth's temperature and its impact on Earth's climate. Walaanshaha caalamku waxa weeye markaasi korodhka heerkulka dhulka iyo saameyntiisa oo ku yeelanaya markaasi cimilo goboleedka dhulka. Climate is a long-term weather variability averaged over many years and decades. Cimilo goboleed waxay tahay markaasi cimilada mustaqbalka fog ee dhulka taasoo isbeddelkeedu uu ku dhaco markaasi sanado badan ama tobanaan sano. Some of the variables are temperature, humidity, atmospheric pressure and wind. Qaar ka mid isbedelada dhacayna waxay markaasi isbedelada heerkulka, kuwa qoyaanka, kuwa markaasi gibilka hawada sare iyo sidoo kale kuwa hawada caadiga. According to World Meteorological Organization, typical variability average here is 30. Iyadoo laga soo xiganaya markaasi According to World Meteorological Organization, typical variability average here is 30. Iyadoo laga soo xiganaya markaasi ururka saadalinta hawada ee adduunka loona soo gaabsado WMO, nooc ahaan markaasi isbedelada cimiladu ay u dhacaan muddo 30 sano ah. Cyclone Minay and Julius Heiselman have won Nobel Prize in Physics in 2021 for modeling Earth's climate and reliability of predicting of global warming. Cyclone Minay and Julius Heiselman ayaa waxay ku guuleysteen abaalmarinta markaasi qaaliga ee fiisigiska sanadkii 2021 xisaabintii ay ku sameeyeen cimilo goboleedka dhulka iyo isku halaynta markaasi saadaalinta kululaanshaha caalamka. James Webb Space Telescope (JWST) is an infrared telescope located between the Earth and the Sun at a distance of 1,500,000 kilometers. James Webb Space Telescope fogaan aragga markaasi hawada sare ee James Webb ayaa markaa waxa uu yahay infrared telescope fogaan arag markaasi lagu beego ama lagu cabiro casaanbaaha kaasi oo ku yaala markaasi inta u dhaxaysa qoraxda iyo markaasi dhulka oo isku jira markaasi fogaan 1,500,000 oo markaasi 1,000 kilomitir. James Webb Space Telescope operates at a temperature of -223 degrees Celsius, important for infrared detection of galaxies and other large structures. James Webb Space Telescope haddaba waxa uu ku shaqeynayaa heerkul gaadhaya ilaa -223 degrees Celsius. Midana waxay muhiim u tahay markaasi baadhida markaasi casaanbaaha ay yeelanayaan markaasi galaksiyada iyo sidoo kale qaab dhismeedyada kale ee waaweyn. James Webb Space Telescope oo la soo gaabsado JWST will tell us assembly of galaxies, birth of stars, and atmosphere of exoplanets and objects of our solar system. Waxa uu inoo sheegayaa markaasi muujinta galaksiyada markaasi oo ah ururada xidigaha, dhalashada markaasi xidigaha, gibilka hawada ee markaasi kuwa wareegsan exoplanetska meerayaasha baxsan, walxaha markaasi ay leeyihiin ama ay ka samaysan yihiin bahda qoraxdu, future perspectives, aragtiyaha markaasi mustaqbalka. Research at forefront is very expensive and billions of dollars. Cilmi-baadhista markaasi safka hore waxay tahay cilmi-baadhista ugu qaalisan waxaana lagu iibsadaa bilaayiin dollar. This research is needing collaboration of scientists from different fields and innovative
and involves many countries. Cilmi baaristani markaasi waxay u baahanaysaa wada shaqaynta markaasi saynis yahano ka imaanaya waaxyo kala duwan, tanna markaa waxaa ku lug leh wadamo tiro badan. Rich countries have huge laboratories of their own with many physicists involved. Wadamada markaasi qaniga ah waxay leeyihiin shaybaadhyo markaasi aad u waaweyn oo iskoodu leeyihiin, kuwaasoo ay ka shaqeeyaan markaasi